waxaa weeye boocame maamul Somaliland la yiraahdaa qabsaday qabiil isaaq la yiraahdaa ma qabsan wuxuu ka qabsaday maamul Puntland la yiraahdo ee qabiil dhulbahante la yiraahdo kama qabsan waxaa rabaa inaan idin sheego dadka beesha dhulbahante eedeynaya dhulbahante 1998 waxay wax ka dhisteen shiina culay oo baraha bulshada iyo weliba dhiiga Soomaalida aan ka ah ayaa waxa uu bartiisa TikTok ku qabtay dad oo ku falanqeynayo qabashadii maamulka Somaliland ee Boocame taasoo asiga sida ay la tahay uu sheegay in Boocame laga qabsaday maamulka Puntland markaana ay ka qabsadeen maamulka Somaliland iyadoo inta badan dadka xog ogaalka ah ay sheegayaan ama ay aaminsan yihiin Boocame beesha degta oo dhimaanta ah oo iyadu iska leh in ay kala qabsadeen jifooyin ka tirsan beeshaasi markaana maamulka Puntland uusan wax shaqo ah ku lahayn haddaba waa kan wariye shiina culay oo arrintaas ka hadlaya waliba meel badan taabanaya daawasho wacan baan leeyahay wuxuuna ka qabsaday maamul Puntland la yiraahdo dhulkaas qabaa'il waa ka tageen waxaan arkayaa dad guuldarada maaragtay guuldarada soo food saartay Puntland raba inay iyada ka leexiyaan oo qabiil u saaraan oo leh dhulbahanta halka degan dhulbahanta dhulkiisii qabsaday dhulbahanta Somaliland ka qabsatay Somaliland qabiil maaha Somaliland qabiil dagaal kula ma jirto Somaliland qabiil maxaan ku iraahdaayay isaaq la yiraahdo maaha Somaliland waxay tahayba waa maamul shaar gashan sida Puntland aysan u ahayn jifi aysan u ahayn majeerteen aysan u ahayn ay u tahay maamul si lamida ba Somaliland maamul marka waxa weeye Boocame maamul Somaliland la yiraahdaa qabsaday qabiil isaaq la yiraahdaa ma qabsan wuxuu ka qabsaday maamul Puntland la yiraahdo ee qabiil dhulbahante la yiraahdo kama qabsan waxaa rabaa inaan idin sheego dadka beesha dhulbahante eedeynaya dhulbahante 1998 waxay wax ka dhisteen Puntland dastuur baa halka lagu qortay mas'uuliyadii difaaca maamul ee deegaanadaasna odayaashii dhaqanka iyo qabaa'ilka waa ka wareegeen maamulkaas ku wareegeen si lamida gobolada kale iyo beelaha kale ee Puntland ku midoobay wixii markaa ka dameeyay mas'uuliyadda difaac iyo kan maamul iyo kan nabadgelyo ee deegaanka Puntland bay u wareegtay qabaa'ilka waa ka wareegtay dhulbahante markuu dhulkiisa hab qabiil ku maamulayay ku haystay Somaliland waa jirtay 1991 baa Somaliland la dhisay mana soo weerarin sababtoo ah waxa weeye dhulbahante dhulkiisa waa difaacanayay inay dhulka iyagu difaacaan inay mas'uuliyadooda dastuurka gutaan haddii ay gudan waayeen maamulkiina ujeedooyinkii loo dhistay uu ku fashilmay ciidamo maxaa ku la kuwa Somaliland u dhigma oo iska celin karana ay dhisi waayeen waxay idin yiraahdaan waranagu hawsha ma qaban karno wixii lagu heshiiyay waa ka soo bixi weynay dastuurka lagu sheegaya waa heshiis bulsho heshiiskii bulsho meesha waa ka baxay dhulbahanto isku tashada waxaan ku kalsoonahay dhulbahanta taariikh buu leeyahay niman daraawiisha weeye niman maxaan ku iraahdaa dhulkooda weligood soo deganaa weeye isaaq iyagoo qabiil shalay diriri jireen baad iyo biyaba waa ku diriri jireen weligood dhulbahante ceel aa sheegaysaa ee kob ay leeyihiin isaaq ma soo degin haddana sidii way ahaan lahayd dhulbahantana waa dhulbahantii hore isaaqna waa isaaqisii hore wax isbedelay male kaliya waxa isbedelay dhulbahanta inay maamul Puntland la yiraahdo
ay wax ka dhisteen lagu kaday lagu hoday maamulkaasna wixii lagu heshiiyey uu ka soo bixi waayay dadka meelaha ka qaylinaya oo kale dhulbaanta dhul laga qabsaday war dhulbaanta dhul lagama qabsan isaaq dhul kama qabsan dhul hadii la qabsaday Puntland baa laga qabsaday oo maamul ah waxaana ka qabsaday Somaliland oo maamul ah dadka jahwareerinta in laga daayaa fiican waxa fiican Puntland laba mid inay soo gasho dhulkii inay dastuurka mas'uuliyadda dastuurka ka saaran inay gudato oo dhulkii maxaa ku raadayay lagu wada heshiiyay ee Puntland lagu dhisay 5 gobol iyo degmada Buuhoodla Puntland lagu dhisay haddana Buuhoodla waxay noqotay gobol cayn yiraahdo noqotay haddii Puntland uusan maamulkii dastuurka waxa ugu qoran oo lagu heshiiyay aysan dhulkii difaaci karaynin maba difaaci karaan oo ku fashilmeen waxay ahayd inay dhulbahantooda deynta ka daayaan oo dhahaan dhulbahantow dhulkiini u tashada dhulbahante markaas waa qabiil waa dad la yaqaan waa dad qarana waa dad awood leh waxaan hubaa inay iyagu maxaan ku iraahdaayay ay difaac iyo maamul iyo wax kasta ay isugu filaan lahaayeen laakiin inkaarada dhacday waxa weeye Puntland dhulkiina difaaci mayso oo tabar iyo tayo iyo ciidan ay ku difaacdo ma hayso iyo leadership hoggaan macna aragtile oo ay ku difaacdo oo meel la yaqaan u socdo male dadkii dhulka difaacan lahaana waa hooda deynaysa iyadii baa hagardaameynaysa waa masiibooyinka dhacay ka mid tahay dawadayaal waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo weliba la socodka xiisaha leh oo aad bartayna Facebooka iyo weliba YouTube-keena aad u haysaan waxaan anagana aan ka ballan qaadaynaa inaan warar xiiso leh aan idin soo gelino fadlan si sheekaraya oo la wadaaga asxaabtiina like iyo comment-gana fikirka idinka la tahay noogu reeba waa mahadsantihiin